Salaam waa mar kale barnaamijkeena Excel ka markale waxaan bilaabaynaa functionada inoo hadhay oo ah barnaamijka if hore sidaan u soo aragnay if ayaan soo aragnay ahayd dib ayaan ugu noqonaynaa dib u milics ayaan sameynaa saamkan marka hore shaqeynaa equal to sum saddexda wada dooranayna kadib markuu noo shaqo baan u jeedinaa equal to baan leenahay average equal to average baan leenahay average markaan nidhaahno click baan leenahay totalka noo soo baxay ayaan kaliya leenahay saddex ayaan qabanayna maadaama saddex koorsi meesha noo saaran yahay inter ayaan leenahay hoos ayaan soo jiidaynaa anoo soo jiidna oo noo wada shaqeynaya halkaas ifti hadda halkan ayaan ku arkaynaa equal to if ayaan leenahay haddii if average hadduu ka weyn yahay 9 comma double quotation a iga dhigan leenahay quotation ka xidhna comma ayaan leenahay if ayaan leenahay average hadduu ka weyn yahay 80 average kaas 80 haddii uu ka weyn yahay ama f5 hadduu 80 ka weyn yahay comma ayaan leenahay double quotation b iga dhigayaan leenahay b markuu ka dhigo comma ayaan leenahay if ayaan leenahay hadana average kaas haddii uu ka weyn yahay 70 greater than 70 hadduu yahay c iga dhigayaan leenahay c iga dhigayaan leenahay 70 ka sareeyo kadib comma double quotation c di baan xidhaynaa comma leenahay if ayaan leenahay average kaas ama f5 haddii ay ka weyn tahay 60 d geli baan leeyahay d iga dhig baan leenahay wixii intaa ka baxsan comma leenahay double quotation baan leenahay f iga dhig ama f inoo si baan leenahay fail ha noqdo wixii intaa ka badan ayaan leenahay enter ayaan leenahay kadib waxaan xidhaynaa inta double quotation baan tirsanaynaa inta bracket meesha noo furanaya aan tirsanaynaa kadib 5 bracket weeyaan 5 bracket weeyaan 5 bracket marka noo soo baxdo enter ayaan leenahay a buu noo siiyey kii koowaad hoos ayaan usoo jeedaynaa 92 maadaama 90 wixii ka sarreeya a nooga dhigaan nidhi 90 wixii ka sarreeya oo dhan a buu siiyey wixii ka hooseeyey wuxuu siiyey b yuu siiyey c